بسم الله الرحمن الرحيم محوها وان وادين سلام يا ورياشين اي حلبان هذا شرفت لا كسو قيب قلي go-aankii ay shalay oo taariikhdu ay ahayd muxuu ahaa ay sheegay 15 bishan oo kalfadhigii koowaad fadhigii 54 oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano gaaraya 53 xubnood oo muxuu ahaa ay uga doodayeen muddo bil ku dhow ilaa dhowr iyo 20 cisho budgetkii ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda ee dawlad goboleedka Jubbaland kalfadhigii shalay ay yeesheen xildhibaanada oo aan kor ku soo sheegay tiradii fadhiday oo ahayd 53 waxaa cod aqliyad leh oo muxuu ahaa gaaraya 42 xubnood ay ku ansixiyeen waxaa diiday 9 baa diiday 2 ka aamustay sida daraadeed muxuu ahaa dawlad goboleedka baarlamaanka Jubbaland oo maanta anoo magacooda ku hadlaya xubnihiin halka ay fadhiyaan muxuu halkaan ku cadeynayna in kalfadhin muxuu ahaa budgetkii sanadkii 2016 la ansixiyay shalay oo taariikhda ahayd muxuu ahaa 15 bishii 2016 muxuu ahaa waxaana ansixiyay 42 xubnood meesha waxa fadhiyay 53 muddo 26 maalmood ah waxa laga doodayay oo baarlamaanka loo qaybiyay budgetka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Jubbaland muxuu intaasan u sheegaynaa muxuu caalamka dawladda federaalka dadweynaha reer Jubbaland inay ku diirsadaan in baarlamaanka Jubbaland uu hana qaaday uu go'aansaday in muxuu ahaa sharciyadii lagu adkeeyo baarlamaanka xildhibaanada Jubbaland maanta waa sharciyaashii shacabkay matalaan waa saddexda qodob ee ugu horeysa oo baarlamaanka Jubbaland ay ku shaqeynayaan waxa weeye matalaada shacabka Jubbaland ilaalinta sharciga iyo la xisaabtanka wasaaradda maaliyadda 26 maalmood u fadhinay waxa ay soo qoreen wasaaradda dawladda ay u soo gudbisay ilaa wasaaradda maaliyadda waxay soo gudbinaysaa budgetka wasaaradaha oo dhan marka wassalaamu calaykum rakala iga dambeyn doona waxaan ku wareejinayaa xildhibaan Cabdikariin inuu faahfaahin yar bixiyo asagana waa mahadsantiin السلام عليكم بعد صحافة iyo dhamaan beesha bulshooyinka Jubbaland waan salaamayaa sidoo kale xildhibaanka sida uu sheegay weeye miisaaniyadda shalay ahayd 15 bishii 2016 ay ansixiyeen xildhibaanada Jubbaland wuxuu soo maray processkii la marin jiray miisaaniyad markii la ansixinayo oo ahayd in cid ku shaqo lahayd ay soo diyaarisay marka hore miisaaniyadaas ka bacdi ay soo gudbisay golaha wasiirada ee Jubbaland golaha wasiirada Jubbaland ay ayaguna sidaas oo kale isku raaceen golaha wasiiraduna ay soo baasmareeyeen golaha xildhibaanada Jubbaland xildhibaanada Jubbaland sida uu sheegay xildhibaankii ugu horeeyay waxay qaadatay processkaas ka doodistiisa iyo akhriskiisa muddo ku dhow bil muddadaas ay ka doodayeen ka bacdi waxay ansixiyeen xilligaas oo ahaa shalay oo taariikhdu ahayd 15 bishii 2016 budgetka ay ansixiyeen totalkiisu wuxuu ahaa 12 milyan 372,273 milyan buu ahaa waana sanadka 2016 bay ahaa budgetkaas waxaana soo gudbiyay golaha wasiirada waxaana baas mareeyay golaha shacabka Jubbaland marka saas darteed miisaaniyaddii 2016 way ansixiyeen xildhibaanada Jubbaland waxaan u sheegaynaa marka cid kasta oo arrimaha Jubbaland caawisa ama dan kale in miisaaniyaddii Jubbaland la ansixiyay in muddo aan laga soo doodahayay oo golaha wasiiradana ay ka soo doodeen ugu dambeyn ay soo gaartay golaha shacabka golaha shacabkuna ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh marka sidaa darteed waxaan oran karnaa marka oon leenahay miisaaniyaddaas 2016 waa ansax waxaana ansixiyay golaha shacabka Jubbaland waana mahadsantiin afada maanta waxa sharaf ah inaan hortiin soo fariisano anagoo macnaha idin soo tabinayna in miisaaniyaddii dawlad goboleedka Jubbaland la ansixiyay sida xildhibaanadii ugu horeeyay ay sheegeen miisaaniyadda la ansixiyay Jubbaland maanta golaha baarlamaanka la keenay 15 bishii 2 waxay 12 milyan 372,273 doolar bay ahayd iyadoo ay miisaaniyaddaasi isugu jirto miisaaniyaddii golaha fulinta iyo tii baarlamaanka labadaba ay isugu jirto iyadoo ay miisaaniyaddaasi kala caddahay si cad u kala caddahay waxay dawladda muxuu ahaayeen
Jubbaland wixii soo gala iyadoo lagu salaynayo sidii la sheegay cod aqlabiyada lagu ansixiyay dood dheer baa soo maray waxaan u sheegaynaa waxaan rabnaa inaan cadeyno in miisaaniyadaasi processka rasmiga ah ee loogu talagalay ay soo martay muxuu ahaa bulshada caalamkana waxaan ku codsanaynaa in dowladda Jubbaland maadaama ay soo cadaysay wixii soo galay kuna salaysay wixii iyadu ay haysatay baarlamaankuna uu bit by bit uu kala qaaday lagana dooday lana ansixiyay in muxuu ahaa dowladda federaalka iyo muxuu ahaa bulshada caalamku ay ku garab istaagaan budgetka isaga ah sababta waa horumar dowladda muxuu ahaa Jubbaland ay gaartay in budgetkii maanta la ansixiyo muxuu ahaa lana shaaciyo sidaa darteed waxaan leenahay bulshada caalamka iyo dowladda federaalka baa lagu garab istaagay dowladda muxuu ahaa Jubbaland miisaaniyadda ay soo samaysay aad baan u mahadsantihiin